burkiina guur khayr gurigiina gurinagay waa hambalyada ee dadka Soomaaliyeed saakay ku soo tooseen waana hambalyada arooska iyo aroosada Naciimo Warsame iyo Cabdi Fitaah ilka case ama ilka case qays loo yaqaano arooskoodu waxa uu ka dhacay dalkaasi Mareykanka gaar ahaan magaaladaasi Soomaalidu ku badan tahay ee Minneapolis waxay ahayd aroos lama filaan ah oo dadka Soomaaliyeed ee la yaabeen waa xidiga fanaaniinta raabka u haysta ee loo yaqaano ilka case qays iyo xidigta shactarada ee ku wada nool dalkaasi Ameerika gaar ahaan dalkaasi Minnesota sheekada xiisaha leh ayaa sida uu soo socday shukaansigooda iyo xiriirkooda sanadihii u dambeeyay walow Naciimo Joker ee mar dhow kala faataxaysteen saygeedii hore ninka lagu magacaabo fanaanka lagu magacaabo ee ku nool dalkaasi Sweden Faysal Xawaase ma ahayn oo kaliya kama soo wareegan hal sano iyo bar ama 2 sano wax ku dhow ayaa ka soo wareegatay iraade ama qiyaasteeda hal sano iyo xogaa ayaa ka soo wareegatay markii ay kala tageen in is alfan waayeen arooskoodu hore ayaa ahaa aroos aad u wada qabsaday baraha bulshada xilligii ay arooseen Faysal Xawaase iyo Naciimo Joker haatan waa fanaan caana waa raabistaha ugu weyn ee Soomaalida iyadoo raab aqoonin ayuu baraha bulshada la soo galay wuxuu fankiisa soo bilaabay sanadii 2004 ilaa haatan waa xidig aan dhicin walow baryahan dambe uu suuqa ku cariiriyay wiilka da'da yar ee 20 jirka ah ee lagu magacaabo Sharma Boy hambalyo ayaan leenahay xidigtan ayaa barihii u dambeeyay waxa ku socday weerar dhanka baraha bulshada ay ku qaadeen koox isbahaystay oo hogaaminaya wariyaha caanka ee Daahir Cabdulle Cali Sow arooskooda ayaa saakay qabsaday baraha bulshada gaar ahaan barta Facebook iyo meelo kaleba iyadoo hambalyada ay u dirayeen dadka ugu caansan Soomaalida arooskooda ayaa lama filaan ku noqday dad badan dadku laakiin waxay isweydiinayaan saaxiibtinimada ka dhaxaysa ilka case qays iyo Daahir Cali Sow ma uu joogsan doonaa dagaalka uu ku hayo xaaskiisa cusub ee Naciimo Warsame Naciimo Joker sidee ayuu arooskooda u dhici doonaa waxa la sheegay in lagu meheriyay gabadha si 100 halaad oo geela ama lacag u dhigmata 70,000 ama iraadee 35,000 oo dollarka Mareykanka hambalyo ayaan leenahay wiili caano iyo gabari caano waxa xusid mudan labadooduba inay yihiin aabe iyo hooyo horey wax u soo dhalay ilka case qays ayaa haysta 3 cunug oo ku nool dalkaasi Mareykanka walow aan la xaqiijin karin inay hooyadood kala tageen halka Naciimo Joker ay haysato gabar da'ada qaangaarka ku dhow labadooda ayaa jira da'ada ku sii socda 40-meeyada iyo koona 35 kor u dhaafay labadoodaba Naciimo Warsame iyo fanaanka ilka case qays hambalyo ayaan leenahay hambalyo waa Maxamed Alfa salaamullaahi calaykum Somalia